السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا فلوغان نمبر كيسو يهي لح مانتا وحنا كان كولا وذاك دونا موضوع مهمة آد مهمة قارهان آد مهم وقوه دالينيرada أما حتى قفل بو بني آدم aan islaahay fikir wax uun ayuu ku soo kordhin vloggan aan ka hadlayna maanta marka koobaad sidoo kale muuqaalkan waxaad ka daawan kartaan oo hadda ay macquul tahay dadka qaar inay ka daawanayaan page-ka Facebook-ga Suhayba Badqas sidoo kale kanaalkan Umar Inshaar ee aan ku talagalay waxyaabaha vloggaadka la xiriira sidoo kale waad ka daawan kartaan haddaba maadaama mowduucanagan uu muhiim yahay uuna u baahan yahay deganaan iyo meel xasiloon waxaan aaday meel lagu magacaabo Katara xay Katara الثقافي dalkan qadar kamida waxaana taga tareenka metroga dhulka hoos mara oo ah runtii gaadiidka ugu fiican ee aad ku aadayso gaari haddaad qaadato taban waxa laga yaabaa intaad baarkin raadinayso in waqti uu kugu qaato laakiin tareenka raac kadibna uga dag meesha naftirkeeda kadibna waxaad joogtaa Katara كاتارا وميل آد قروح بدن آد قروح بدن آد دقن مقايدة كافتيريا مكتبة كلا دوان ميل دقنكا أقوانتا الثقافة لحريت أي لاذاي sidoo kale waxay leedahay sida noo muuqata meeshan aan joogno waxa uu ag ama loo dhisay qaabkii Roomaanka hore u dhisi jireen meelaha madarajaadka oo kale marka waan ku soo yar laaban doonaa wax la xiriiro Kataradan laakiin aanu imaano mowduucana maanta waqtigan aan noolnahay يعني مانتا ومالنتي ugu horeysay 2022 waa casri طبعا degdega wax walbana hormarayaan waa casri noloshii hore macnaha nidaamka qaabka hore lagu socday ay wax badan iska bedeleen maanta waxa ugu muhiimsan ee aad leedahay laga raba inaad barato waa inaad leedahay xirfad mahaara skills noocay ahaataba inaadan ku ekaanin shahaadadaas aad wadato maanta shirkadaha ugu waaweyn caalamka hadii ay noqdaan Google hadii ay noqdaan shirkado kale waxay sheegaan mar walba in ayna fiirinaynin shahaadada uu wato qofkan waxaan fiirinaynaa qofkan muxuu yaqaan xirfadda uu yaqaan maadaama ay og yihiin in uu qofku wax isbari karo maanta sidaas darteed aan halkan ku sheegno waxyaabo laga rabo inaad barato si aad casrigan ula jaan qaado kow waxa laga yaabaa inaad dhahdo yani waa shay qadiima ma ahan qadiim وانا لوقدها افافكا هذا muuqaalkan aan hadlaayo yani waxaad ka daawanaysaa ama YouTube ama meel kale in aan ku soo gudbiyo macnaha muuqaalkan in uu ku soo gaaro wuxuu u baahan yahay hadal in aan hadlo qofkana in uu hormariyo qaabka uu hadlaayo in uu wax badan akhriyo in yani uu soo qaban karo meelaha ugu muhiimsan in uu dadka u soo gudbin karo ama uu ugu soo gudbin karo qaab macquul ah oo degan oo ay wax ka faa'iidayaan مهاراتك أما وحيابا لحريرة لغة ومهم زمن كان وعصرك لغة كلا دوان وحوال بقى مانتا سوشيال ميديا لحريرة مركي لغا صوتك طبعا دادكاس يعني بودايو وحي لحريران لغة يأف يأين آد وحسو قد بيسا أهدي أي نقطة فيسبوك سيدوك اليوتيوب سيدوك التويترك وحوال بلا سوقرايو ومهم إن قفكاس يعني اللغة دي قانو لغتها أما أففك أن إلى هير لدي كروا مهم أنت إن برنا كو طبعا أفكار لوقد هذه أتكو هذا الشيء يعني أنا كصومالي وأنا طبعا صومالي أيان هاي أف صومالي قص أيان كو هذا لنا إسكودي إن أفكار إن سيحوجيسا إن أفكار إن يعني قاب كاد أهليسا إن حتى أتصميسة أف صومالي معناها يعني لدي كروا إن أدسكو سوقبتي لهجتها كلا دواني صومالي ده معناها إن مجوجسة كدبنا كلا صوب بحظة شيء يعني adiga ku hadli karto dadka inay ku fahmi karaan markaad afkaada hooyo si fiican u barato oo ah shay muhiim ah afkaada hooyo inaad barato waa shay muhiim ah afka aad ku hadlayso inaad si fiican u taqaan waxay ka dhigan tahay inaad qof macnaha karaamo leh qof ixtiraamaya naftiisa iyo mujtamaciisa bulshadiisa ixtiraamayo inaad ay ka dhigan tahay waligaana hal kalmad ka dhageysanin qof luuqadiisa ka faanayo qof afkiisa ka faanayo waliga wax ka dhageysanin sida waaxaha kala duwan ee
kusoo qoro afaf qalaad sidoo kale markaad ka soo tagto in afkaada hooyo waxaad barataa Englishka dabcan shaka kuma jira maanta ahmiyadda Englishka uu leeyahay cid loo sharxayana ma lahan Englishka yani ahmiyadiisa maanta in uu noqday luqad caalami ah sidoo kale waxaa lagu taliyaa inaad barato afka Isbaanishka marka koobaad aad ayuu u sahlan yahay waa mid ka mid ah luqadaha ugu sahlan Isbaanishkana waxaa ku hadlo yani dad ka badan nus bilyan qof Latin America dhan markii Brazil laga soo tago waxay ku hadlaan af Spanish Latin America qaaradaas dhan Koonfurta America Brazil oo Portuguese ku hadasha markii laga soo tago waxay ku hadlaan Spanish ka soo bilow Mexico intaas leeg ilaa aad ku geyso Argentina ugu dambaysa iyo Chile waxa lagu hadlaa Spanish Mareykanka naftirkiisa luqadda labaad waa Spanish Isbaanyool dad badan oo afkaas Spanish ku hadla jooga tabcan waana luqad rasmi ka ah Mareykanka luqadda labaad af Spanish sidaas darteed markaad luqadan barato waxay ka dhigantay in macna ufuq kale uu ku furmay in ummado kale aad afkooda fahmayso in aad kutub kale akhrin karto in aad waxyaabo badan oo ka qarsoonaad yani taalacan karto midaas waa muhiim ama xitaa afka Shiinaha waa la dhahaa zamankan inaad barato sidoo kale waa muhiim Talyaaniga xitaa sidoo kale dad badan oo Soomaali Talyaaniga u sahlan yahay ama xitaa qof walba af Soomaaliga qori karo Talyaaniga inuu barto iyo Isbaanishka naftirkiisa xitaa uu sahlan yahay sababtoo ilaa heer waad akhrin kartaa fahanka markii laga soo tago waad akhrin karaysaa haddii lagu keeno bog Talyaaniga waad akhrin kartaa laakiin fahamka waa meel kale sidoo kale afka Carabiga waliba waxay ahayd qodobkan runtii inaan af Soomaaliga ku xijinay ahayd tartiib macna meeshan ma ahan liis ma samaynin yani adii luqada isleedahay way ku fududahay ama aad ku hormari kartaa aday ku taalaa sidoo kale afka Carabiga waa luqad muhiim ah wax walba muhiim ah haddii ay noqoto xitaa horumarka caalamka xitaa haddii ay noqoto dhaqan iyo taariikh iyo islaamnimo iyo wax walba teeda kale qof walba muslim ah yani luqadda Carabiga uma ahan luqad ajnabi ah runtii dad dareemayo ducfi iyo naaqisnimo iyo jahligooda macnaha inaan afka Carabiga baran karin ayaa kalmad Carabi markay maqlaan xanaaqayo Carabigana naga dadka dhahayo kuwaas yani runtii sharaf iimahan inay idaawadaan qof sidaas aaminsan luqad uu Ilaahay abuuray islaama tabcan quraankaas lagu soo dejiyay inuu dhaho ama kalmad kamid markuu maqla xanaaqayo qof noocaas oo kale runtii yani waa qof yani dambeeyo runtii xarfiyan waa qof dambeeyo caalamka maanta qof nooc uu yahay qof walba yani aan hadda waan jeclaan lahaa maanta in af cibri barto ya salaam in af amxaari barto waan jeclaan lahaa afka tikreeda inaan barto waan jeclaan lahaa luqad oo waxa ka faa'iideysa laakiin haddaad maanta aaminsantahay adigoo nin dhalinyaro ah af Carabiga ma maqli karo Carabiga nagala tag waxay ka dhigantahay midaan yani inaad tahay qof jiran xarfiyan waxay tahay inaad tahay qof buko xanuunsan waxaana kugula talin lahaa inaad is soo daaweyso af Carabiga markaad akhriso tusaale ahaan kutubta Ibn Taymiyyah iyo sidoo kale Ibn Qayyim al-Jawziyya markaad akhriso yani waa kutub runtii aad isleedahay dadkan cabqarinimadooda ama aqligooda ma mid caadi ah akhri kutubta al-Ghazali akhri waxaad akhrisaa kutubta Ibn Taymiyyah akhri Sheikh al-Islam sidoo kale waxaad akhrisaa Ibn Qayyim akhri kutubtiisa dhinac walba ka dhismaysaa dhinac walba ayaad ka dhismaysaa laakiin haddaad aaminsantahay in riwaayad la akhriyo iyo hebel jeclaaday kadibna kelmad Carabi markaad maqashaad xanaaqayso waxay ka dhigantahay macnaha inaad diyaar u ahayn inaad wax isku fasho qof dambeeyana aad tahay maadaama luqad qiimahaas leh af Carabiga qiimaha uu leeyahay ma ahan mid laga sheekayn karo luqad qiimahaas leh aad dhahdo kelmad markaad maqasho Carabiga naga daa sidoo kale waxaa jira waxyaabo ay ku magacaabaan xirfadaha yani waxbarashada oo ah yani in aad si tayo leh waxaad internetka ka baranayso iyo meel kale aad ka baranayso aad u barato si tayo leh kafaa'a aad u barato si dhab ah aad u barato aad mobile iyo wax kale aadan ku mashquulin aad xilligaad rabto aad soo ceshan karto haddii ay noqoto inaad xifdiso ama qaabkee noqotoba micnaha macluumadaas aad baratay inayna kaa lumin yani maanta inaad barato buuggan markaad akhriso kitaabkan markaad akhriso macluumadii aad ka heshay inayna kaa lumin inaad ka barato inaad barato qaabkaas iyo sidoo kale inaadan hilmaamin inaad barato sidoo kale sida wax loo baaro haddii ay noqoto internetka haddii ay noqoto iyo haddii ay meel kale noqotoba
يعني xirfadaha la xiriiro sidaad wax u baari lahayd sidaad internetka wax uga baari lahayd yani waxyaabaha runtii igu dhaliya qodobkan ama ka hadalna waa yani markaad aragto maanta zamankan nin dhalinyaro ah yani internet haysto buug internetka ku jiro inuu qof dhaxageen ka helaa buug internetka ku jiro uu heli karo inuu dhaxageen ka helaa qofkaas wuxuu u baahan yahay inuu barto xirfadda sida wax loo baaro taasna waa muhiim waxyar meeshan Qatar ayaan joognaa wali waa meeshan ma sha Allah yani aadka cagaarka ah cagaarkan aad arkaysaan waxaan oo geeda ah kuma hina soo bixin roob yani dhulka cagaarka intaan la eg buurtan sidoo kale cagaarka la sameeyay dhibic roob kuma soo bixin waa waraabin yani waxaan filayaa sanad ka badan miyaa roob ma aanan arag alxamdulillah xaalay taxooga roob ahadaay marka yani meelahan cagaarka aad ku fidsan runtii dadka nafsi ahaan way dejinaysaa qofka yani wuxuu noqonayaa ama mujtamaca wuxuu dareemayaa meel micnaha yani wanaagsan inuu ku nool yahay runtii masaaxaadkan ay ku magacaabaan musataxaad khatraagan oo kale in ahmiyad la siiyo cidii meel maamusho kale waa muhiim dadku iskaga nastaan yani hadda dalkii oo kale waa beerahaas la galayo lacagta lagu galayo meelahan iska babliga ah ee laga rabo xukuumadaha ama cidda maamulada sheeganaysa inay sameeyaan waa muhiim intaasoo san inaad u xiiqda difaac yani waqtigaas aad ku lumiso muran waxaad isleedahay micnaha in maamul hebel ama nooc ama dawlad ama kan laakiin tuuba biyo aadan ka faa'iideynin noloshaada ayaa kaaga muhiimsan naftaada hormari inta dad saasa ku mashquuli lahayd aan u soo laabano teeda kale waxyaabaha ugu badan ee zamankan yani dadka keenayo in ay aadka ugu mashquulaan wax walbana ka reebay waa mobilka adigoonan qorshe rasmi ah u dejinin mobilkaas haba yaraatee wax walba oo isku dayda waxay noqonayaan hal bacad lagu lisay isticmaalka mobilka yare waqti gooni u samee yani xitaa hurdada waad aragtay dadka markay sii qaataan yani waxa ugu xun ay macquulka tahay inaad samayso waa inaad mobilkaaga u qaadato sariirta sababtoo ah yani hurdo waad isdeenaysaan indhaha ku xumaanayo indhaha ku gududanayo aniga shakhsi ahaan waxyaabaha aan sameeyay waxa ka mid ah mobilkayga marka koobaad hal application kuma soo degsano Facebook baana ku soo degsanayn Twitter baana ku soo degsanayn wax ku soo degsan ma lahan xitaa waxa islaahay WhatsApp kama xirtaa kadibna mobilka wuxuu noqonayaa micnaha qolof meel iska yaalo mukaalamaadka wicitaanka iyo call marka qofku soo wacan baad qaban markaad ka adkaato mobilkaadaas ayaa talaabada ku xigta qaadi kartaa laakiin adigoo mobilkaas 24 saac ku dhagan mar kale waa hal bacad lagu lisay dadaalada aad sameynayso sidoo kale yani Facebook TikTok caalamkaas aadka u liita runtii wasaqda ma ahan meel qof karaamadiisa ilaashanayo uu yani mobilkiisa ku soo degsanaado waa musqul public ah kanaalkan vlogska yani hadalada qaar waxa laga yaabaa in yara adag yihiin laakiin waa loo baahan yahay TikTok waxa lagu tilmaami karaa marqas public ah night kala public ah oo furan yani bilaash lagu galayo marka hadii aad 24 saac ku jirto aad galayso Allah ku aruuriyo kana soo noqo meeshaas caalamkaas aad ka u madow aakhiray adduunba ku seejinayo waxa ugu xun waa wax aad aakhiray adduun yani labada daar baad ku seegayso ha isku mashquulinina muranka badan ha isku mashquulinina yani waxyaabaha aan anfacaynin ilaahay kuma abuurin ciyaar ilaahay kuma abuurin inaad 24 saac Facebook iyo waxyaabaha iska dhex fadhido waxaan rajeynayaa muuqaalkan waxaan inaad ka faa'iideen waa Cumar Inshaar والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.